بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي وحران جناكيغا فرحان حسن إن شاء الله ما انتهى جعليني دي لوراغو يعني قالينكا شاشة لغو قرو قالينكا حتى شاشة دين كهر مغضي وروريغي شاشة لغو قرو سيدان وكلا dhamma waxaa u baahan baan malaynayaa dhalinyarada fiidiyoyada soo duubtay youtube-ka soo dhigtaa inta badan way u baahan yihiin qof kasta oo ujeedo gaara ka loo isticmaalayana uu u baahan yahay qalinka saas kale waa shaashadaada ku sawiraysaa saasaad u isticmaalaysaa wax kasta shaashadaada ku sawiraysaa sana kale waa shaashadaada ku sawiraysaa halaaliya doonto sida aragtid kan delete keerahdo waxa la riixaa doontaa shaashadaada ku sawiraysaa soo aragtaan qalinka ay u baahan insha Allah casharkan ka faa'iideystaan qalinka waxaad ka helaysaa Google Play Store-ka hadaad ku qorto draw pen sorry waxaad ku qoraysaa draw anywhere ayaa la yidhaahdaa applicationka magaciisa draw anywhere ayaad ku qoraysaa application tirada badan laba koo soo bixi doona kaa waa isticmaali karaysaa inkastoo isagu annoying inuu yahay aanu aada u fiicnayn kan ayaanu ka doorbidaya inaad isticmaasho ka ويان applicationku draw anywhere ku qorantay Google Play Store kusigo free ayaad ka helaysaa applicationka soo dejiso soo download garaysaa anu hadda waan download garaystay hadna soo download garaysaa soo dejiso kadib open day applicationka san ayuu soo bixi doonaa qaybtaas waa floating window inta yare hakan shaashada soo soconaysa ayaa active laga dhigaa marna on laga dhigaa hagaasuna waa colorka aad ka bedelaysaa qoraalka yana fartan yar hada aan sawirayo qoraalkeeda aad ka bedelaysaa hagana size-keeda ayaad ka yareynaysaa hagaas waa inta yare float window waa inta yare soo soconaysa hada hagana midabka aad ka bedelaysaa hadba waxaad sawirayso midabkooda aad ka bedelaysaa hagana size-ka waxa sawiraysa aad ka weyneynaysaa insha Allah application-ka ka warhaya walaalkay farxaan xasan dalba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته channel هذا subscribe saar comment like share دمان انتو حقينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته